Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada qardha bosti ama page-ka aan ku leenahay Facebook. Kitty waa gabar 18 jir ah waxayna ku dhalatay ama ay ku nooleed magaalada Mississippi ee dalka Mareykanka. Gabadha tan sanadka markuu ahaa 2014 waxa soo wajahay xanuun dhanka caloosha ah. Waxay go'aansatay inay tagto dhakhtarka si ay isku soo baadho, balse markii dhakhtarka tagtay waxa loo sheegay in caloosha ay ka jiran tahay ayna u baahan tahay inay dawooyin qaadato. Gabadha tan waalidkeed oo aan hayn haba yaraatee wax shaqo ah ayaa waxay awoodi waayeen kharashkii ama koostigii lagu daweyn lahaa. Sidaa awgeed, Kitty aad iyo aad bay ugu xumaatay in ay waalidkeed u awoodi waayeen kharash aad iyo aad u yar, balse ma dareensanayn kharashkaas yar in aysan awoodin waalidkeed. Kitty waxay go'aansatay inay noloshiisa dhaafiso. Waxayna soo qaadatay qori, waxayna iskaga qabatay ama ay iskaga beegtay dhanka madaxa ah iyadoo xabadda isku dhufatay. Kitty ma aysan dhiman, balse waxa soo gaaray dhaawac aad iyo aad u culus oo u badan dhanka wajiga. Kitty wajigeedu inta aysan xabadda isku dhufan ka hor wuxuu ahaa sida tan, balse markii ay isdhaawacday ama xabadda isku dhufatay wajigeedu wuxuu ekaaday qaabakan. Run ahaantii waa wax aan la fiirin karin. Intaasoo dhanna waxa u soo jeeday ama dhibta inta leeg iskugu geysatay waa calool xanuunkii soo wajahay, balse waxay isku geysatay dhibaato aad iyo aad u weyn. Kitty markii uu dhaawac kan soo gaaray waxa lagu sameeyay qalliin qaatay 31 saacadood sanadka markuu ahaa 2017. Ugu dambeynna wajigeedu markii qalliinkaas uu dhamaaday wuxuu noqday sida tan. qof kasta oo iimaan leh ama qof kasta oo muslim ah waxa waajib ku ah qadarka Allah ama wax walba oo soo wajaha inuu ku samro, waana nimcada ay leedahay diinta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamay. fadlan follow iyo like-ta nagu sharo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.